ومجال كتالا ميل هارة وحد أحمر تكوين إلو يقان فافن ومجال بلادن وحين عرف كوكو هيسا بنكوين إيكو هبون بالبيرتك سدو كلنا وحكو هاريريسن هارة أما بورا يرير ومجال عاصمة ديغان كأي مجال دي جيجيغا كجا آدن دنكو كونفريد waxayna u jirtaa qiyaas ahaan ilaa 410 kiiloomitir haddaba bal magaaladaasi saadaali daqsinkiyo beeriyo durdurada shidaalka tiloogu deeqiyo qabri dahare daawada waa magaalada qabri dahar ee xarunta gobolka Qoraxay waana gobolka loogu magac daray banka weyn ee caanka ee aad ku maqashaan suugaanta Soomaalida dhulka oo barwaaqo anigoo bulshaho banka jooga Qoraxay dhulka oo barwaaqo anigoo bulshaho banka jooga Qoraxay banka Qoraxay marka la joogo buundada waxa jihada bari uu ka soo noqdaa 20 kiiloomitir waxa uu jihada galbeed ka soo noqdaa isla 20 kiiloomitir sidoo kale waxa uu jihada koonfureed ka soo noqdaa 20 kiiloomitir waxa uuna jihada waqooyi ka soo noqdaa 20 kiiloomitir waa banku fiican dhulbeereedka iyo dhuldaaqsimeedka aadna u ballaaran labada ban midna waxa la yiraahdaa Andale midna Raarana la yiraahdaa garaan hadda bankana taaganahay Raarana la yiraahdaa meeshan waxa la yiraahdaa kuuska helala la yiraahdaa waxay caam ku tahay waxyaalaha dhalaamka ah ayay caam ku tahay asagoo looga soo safran jiray meelo badan sida walwaal iyo doolo iyo wadamo ilaga fog ayaa looga soo doorin jiray carseeshiisa oo geel loo rarin jiray oo geel loo qaadi jiray waxay leedahay dhul beereed iyo kheyraad aad u fara badan buu banku leeyahay aagan igu wareegsan oo dhan dhul beereed weeyaan banku Qoraxay waa ban leh taariikh dheer dhulku magaca guud ka siman yahay balse waxa uu isdheer yahay carraseesha iyo labeenta carrada ku fiican wax soo saarka iyo dhul daaqsimeedka dhulku wuxuu u qaybsan yahay laba nooc dhulku labo iyo kurus buu u qaybsan yahay dhulkan gaar ahaan Qoraxay la yiraahdo waxa weeye dhulka kuruskiisa weeyaan dhulka kuruskiisa weeye haddii aan ka warbixiyo bankan ilaa iyo kuuskan iyo maraacato iyo toga inta u dhaxeeya banka inta waxa la yiraahdaa oo la oran jiray banka Raarana la yiraahdaa kheyraadka iyo masagada anagu aad iyo aad buu ugu caan baxay gaar ahaan aagan aan eega taaganahay waa dhulka aad u sii masaga badan weeye Qoraxay waxa loogu bixiyay maadaama uu ahaa dhul beereed ku caan baxay wax soo saarka ma jirin haba yaraatee wax geeda oo laga harsado qoraxda meeshan waxa la yiraahdaa Qoraxay waxay kula magac baxday geedkan eega aynu meelaynu ka marra aynu laanahay wadanku ma lahayn wuxuu ahaa geed hebel la yiraahdo sida hadii la ma xaq lacdayowa sida loo dabaalka sida hadii la mataanaha sida isku dhoonka geeda noocaas oo wadanka ka magacaaban oo la yaqaano ayuu wadanku lahaa waxay ahayd meesha arlada Ilaahay meesha ugu fiican bay meelay biyo kaga fiican tahay biyaheedu dhowr nooc bay ahaayeen dhana ay xooluhu ku jeel baxaan bay lahayd kuwa saabuunta kiciyo oo hadii la macaan bay lahaayeen kuwa dibir ku yaalo oo hadii la dhaxdhaxaad ay lahaayeen akabaabigan kolkaad xagga u baxda 3-4 nooc yuu u qaybsan yahay sidaa darteed dhulka waxay kaga fiican tahay waxyaalaha kala bedelan badan aad looga beeran jiray masagada iyo haruur yaryaraha sidoo kalena dhulka firida aad ku rido ayaa waxaad ka goosan jirtay wax soo saar fara badan
bakeeri markaad ku abuurto anigan eegga idinla hadlahaya 2 koobiya bakeeri yaan beri abuuray 2 koobiya bakeerigii 25 jawaan baan ka goostay waa anigan meel waxaa weeye yacni tacabka iyo dhulbeereedka iyo haddii la maayey daaqa ka soo baxaayo uu maaragtay waddamada kale aad iyo aad ogaga sarreeyo xoolaha daaqa ooga soo baxa waddanka ee aanu ku naqaanay garrawlaha iyo jarbada iyo baaxuurka iyo xuncaseeyaha iyo haddii la maay geedka la yidhaaho maxaan kuu sheegaa baaxuurka iyo geedka la yidhaaho baribariga riyo xidhaha wuxuu u badnaa masage yaryari oo markaad ama kooba abuurto ama 2 ama 3 70 ama 80 ama 90 kintaal ka guuj taasoo u badnaa labada bamba ilaa maraacato iyo ilaa dugubley iyo ilaa cadaley aw beled ilaa qabdahare labada dogood ba saraca wiisay dhulka oo barwaaqa anigoo bulshaho banka jooga qorraxay dhulka oo barwaaqa anigoo bulshaho banka jooga qorraxay banka qorraxay marka aad joogto waxa kuu dhow ceelka caanka geeluna aadka u jecel yahay uuna ku jeel baxo waana ceelka karuudka waxa uuna ku yaallaa gagida banka qorraxay dhulka oo barwaaqa anigoo bulshaho banka jooga qorraxay dhulka oo barwaaqa anigoo bulshaho banka jooga qorraxay sidoo kale banka qorraxay waxaa ku yaalla daar balaayo oo iyaduna ka mid ah goobihii sayidka iyo daraawiishtiisu ay degganaayeen waa qalcado aad u cimri dheer waxaana la sheegay in lagu dhisay farsamo ay wehelinayso maskax dadka dhisayna dad fara badan bay ahaayeen bale dhagaxa way isu dhiibi jireen bale ilaa intaasoo ruux inta isdaba istaagto ayaa dhagaxa ruux u soo dhiibi jiray sidaasaa dhagaxu laftiisu kabtan ku imaan jiray oo dad fara badan intuu isdaba istaago halka dhagaxu yaallo iyo ruux dhagaxa u soo dhiibi jiray sidaasaa lagu dhisay baa la yidhaahdaa daar balaayo oo ku taalla bartamaha banka qorraxay ayaa waxaa lagu dhisay caano halka sidoo kalena marka sibirka la waraabinayo lagu waraabin jiray caano waana sababta keenta in dhismahani taariikhdiisu duugga tahay ilaa hadda uu dhisnaado daar cabdilaahi xasan dhisay oo lagu dhisay caano laguna waraabin jiray markii la dhiso rushaynteedina waxayna us caano ahaa caanana saliid iyo shidaal iyo waxba toona ma lahayn oo wax lagu qoyo oo kale ma jirin caanahaasaa lagu qoya baana la yidhi waa lagu aruurta kolkii biyaha cadka ega guryaha la dhisahaya aynu kaga hushayno biyaha ee caana lagu hushayn jiraa la yidhi daar balaayo ku taallo waa goob masna ah oo ila barwaaqo ah waxaana bartamaha toga faafan ku yaalla meel biyo macaan oo loo yaqaano dindinta malkadana waxaa la yidhaa baarjeex waana meel neefka geela ee gala liqi jirtay daar balaayo waxay ahayd masna dhulku masnu ahaa kabtan hadda hoosteeda ay faafan inaga quman toga faafaneed waxay ahayd meel biyo macaan oo aan ninna qodin oo toga dhexdiisa meel oo go'an laga cabaayay ahayd daar balaayo waxay ahayd meel sayidka iyo daraawiishtiisuba ay ku galeen dagaallo fara badan sida ka muuqata magaca daarta daartan magaceeda daar balaayo la yidhahdaa sababta ay kula baxdayna dad badan baa ku dhintay sababo kala duwan ha u dhinteen laakiin dad badan baa iyada sababteeda yaa u dhintay baa la yidhahdaa daar balaayo meeshan waxaa kula baxday dhib badan bay lahayd had iyo jeeraale dawlad iyo dadweyne wax ku dirira waa lagu diriri jiray sayidka dagaallo badan baa ku qabsaday
allaha u naxariistay sayid maxamed cabdilla xasan waxa uu ahaa halgamaa guumaysidiida waxa uuna ahaa geesi aragti fog oo kolba cadowga ku raad jooga hilfaha u laabi jiray waxa uuna deegaanka ku lahaa saldhigyo badan oo ay ka mid tahay daar balaayo oo ku taalla bartamaha banka Qorraxay sidoo kale banka Qorraxay waxa aad u jecel gorayada oo aan laga waayin meel bannaana oo aan ammaan ahayn ama aan la isku haleyn karin balse way adag tahay in ukunteeda loo dhowaado waxayna ka difaacataa ukunteeda duurjoogta isku dayda in ay waxyeelayso ukumaheeda